madaxweynaha Somaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siraanyo ayaa soo xulay shirkii golaha dhexe xisbiga kulmiye oo lagu soo gabagabeeyay hoteelka Mansour ee magaalada Hargeysa waxaana shirka maanta wax ka bedel lagu sameeyay xeerka xisbiga kulmiye madaxweyne Axmed Siraanyo oo hadal kooban ka jeediyay shirka waxa uu u mahad celiyay wasiirkiisa caafimaadka Saleebaan Xagle Toosiye oo ku tilmaamay inuu ku dhiiraday go'aan mustaqbalkiisa wax u taraya waa sida hadalka madaxweynuhu u dhigay. waxaan balyeelayaa labada murashax xisbiga u doortay tartanka doorashada soo socda waxaan u rajaynayaa guul. waxaan u hambalyeelayaa wasiirka caafimaadka mudane Saleebaan Ciise Axmed Xagle Toosiye oo si fiican u tartamay inkastoo aan ku guulaysan dabiciisii hase yeeshee wuxuu muujiyay dadaal iyo bisayl siyaasadeed oo badan. gudoomiyaha xisbiga kulmiye Muuse Biixi Cabdi ahna musharaxa madaxweynenimo ee xisbiga kulmiye oo isna hadalka la wareegay waxa uu isna goobta ka sheegay in xisbiga kulmiye uu diyaar garoobi doono wixii khilaaf dhexdooda inay xaliyaan isagoo sheegay in shirkii golaha dhexe xisbiga kulmiye uu dhacay qaab dimuqraadiya. golaha dhexe xisbiga kulmiye iyo taageerayaasha xisbiga kulmiye iyo caalamka oo dhan waxaan u sheegaynaa inaan xisbiga ku wadi doono fikirkii iyo fishankii iyo hiraalkii Axmed Siraanyo uu ku aasaasay ee uu ku hoggaamiyey oo aanu ka furi doono oo aanu ka baxnay waxaanu balan qaadaynaa inuu Axmed Tudooryahay ahaan doono mustambeedka loo noqdo xisbiga kulmiye iyo xukuumadda ka dhalata. khudbadaha kadib waxaa ergada golaha dhexe kulmiye dood adag ka yeesheen wax ka bedel lagu sameeyo xeerka xisbiga kulmiye iyo waliba qaabka golaha dhexe lagu soo galayo waxaana la kordhiyay tirada dadka la haybsooco iyo tirada haweenka ee golaha dhexe iyo waliba qodobo kale. gabagabadii xisbiga kulmiye waxa uu bilad sharaf guddoonsiiyay madaxweynaha Somaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siraanyo waxaana bilada madaxweyne Siraanyo guddoonsiiyay gudoomiyaha xisbiga kulmiye Muuse Biixi Cabdi. gabagabada shirkan kulmiye waxa uu ku soo beegmayaa waqti maanta mar kale ay qaadaceen isbahaysiga musharaxiintu go'aamada shirka golaha dhexe lagu doortay ee musharaxiinta kulmiye xisbiga kulmiye iyo waliba musharaxiinta cusub waxa sugaya dagaal adag oo dhinaca siyaasadda. Betri Koosar Maxamuud, telefishinka caalamiga Star, Hargeysa.